kulan wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran barahayga xiriirka bulshada meel walba oo adduunka ka joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal cusub oo aan kaga hadli doono shakhsiga caanka ah ee loo qabsaday inuu dili rabay weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka Argentine ee Lionel Messi. Taageerayaasha Messi oo weeraray ninkan kamid ah bahda fanka iyo isaga laftiisa oo ugu dambeyn ka hadlay arrintan. balse inta aanan guda gelin warbixinteena maanta ha hilmaamina inaad subscribe inoo saartaan barteena YouTube-ka sidoo kalena aad furataan jaraska ama gambaleelka si ay degdeg idinkugu soo gaaraan warbixinada aynu soo gudbino. Waxaan sidoo kale ka codsanaynaa saaxiibada ku xiran boggeena Facebook inay like saaraan muuqaalkan mahadsanidin. DJ-ga u dhashay wadanka Argentine ee lagu magacaabo Fer Palacio ayaa iska fogeeyay eedayn ay u jeediyeen taageerayaasha weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka Argentine ee Lionel Messi. kuwaas oo DJ-ga ku eedeeyay in uu fayraska COVID-19 qaadsiiyay ama ku riday Lionel Messi. Sabtidii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii kooxda PSG ay shaacisay in 4 ka mid ah ciyaartooydeeda oo uu ku jiray Lionel Messi laga helay xanuunka koronaha. DJ Palacio ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay sawir uu la taagan yahay Messi, waxaana wixii waqtiga ka dambeeyay soo baxay warkii sheegayay in Messi laga helay COVID-19. taageerayaal careysan ayaa ninka muusikiistaha ah ama DJ-ga ah ku eedeeyay inuu cudurkan qaadsiiyay ama ku daartay xidiga 7 jeer ku guuleystay kubadda dahabka ah ee Palondio. ciyaartooyda kale ee PSG ee kala ah Juan Bernat, Sergio Rico iyo Nathan Betomazala ayaa dhammaantood laga helay fayraska koronaha sida ay kooxda Faransiisku xaqiijisay. markii aan hurdada ka soo toosay waxaan arkay fariimo badan oo soo gaaray kuwaas oo dadku ay igu eedeynayeen in aan fayraska koronaha u gudbiyay ama qaadsiiyay ciyaaryahan Lionel Messi. qaar baa dadka aad iigu hanjabay iyagoo igu tilmaamay in aan shirqool u dhigay Messi, ayuu DJ Palacio u sheegay wargeyska dasan ee ka soo baxay Ingiriiska. dhanka kale DJ-gan ayaa sheegay in axadii oo ay taariikhdu ahayd 2 bishan Janaayo uu maray tijaabo caafimaad oo la xiriira COVID-19 maadaama uu u safrayo wadanka Uruguay. tijaabadii PCR-ka koronaha ayaana noqotay mid negative ah oo wax COVID-19 ah lagama helin muusikiistahan. DJ Palacio waxa uu u mahad celiyay qoyska Messi oo ku casuumay xafladda ka dhacaysay wadanka Argentine, taasoo la rumaysan yahay inay tahay munaasabadda uu ka qaaday Lionel Messi fayraska koronaha. markaana DJ Palacio uu muusig u tumay qoyska Messi, waxaana uu xusay in warka sheegaya in uu fayraska koronaha qaadsiiyay weeraryahankan kooxda PSG ee suuqa la wareegayo uu yahay war been abuur ah. waxa kale oo uu xitaa warbaahinta la wadaagay warqadii cadaynta ahayd ee tilmaamaysay in uusan qabin fayraska koronaha. geesta kale weeraryahanka kooxda kubadda cagta PSG ee Lionel Messi ayaa isaguna laga waayay COVID-19 sida uu sheegayo war dhawaan soo baxay. kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska ee Paris Saint-Germain ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in Lionel Messi laga waayay caabuqa coronavirus isla markaana uu yahay mid negative ah uuna ku soo laaban doono tababarka kooxda, taas oo xoogaa bidhaaminaysa in markii horeba shaki laga qabay in Messi uu haleelay COVID-19 maadaama isaga iyo DJ-gii la sawirnaaba laga waayay oo ay negative ka noqdeen caabuqan koronaha. waxaa intaasi inooga dhan muuqaalkii aynu kaga hadlaynay DJ-ga dusha laga saaray in Lionel Messi uu qaadsiiyay COVID-19 iyo hanjabaadii hawada loo soo mariyay balse uu iska fogeeyay. intaan barnaamij kale dib ugu kulmi doono waa anigoo ah Harun Yusuf Qasaaro oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.